waxyaalaha hadda soo kordhay waxaa ka mid ah waa sida nabigu uu sheegay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuuhum wax nafta iyo dabeecada markii diin laga soo tago fidrada saliimada ah xataa ay ka didayso in gaaladii lagu raacayo ayuu tilmaamay nabigu sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid a xilligii hore dabeecada dadka bini aadamku diin markii laga soo tago waxay ka didaa xataa in qofku cawradiisii uu bannaanka keeno waxaa laga xishoodaa xataa dharka aad qaadanayso dhar wanaagsan oo qurxoon inuu yahay waxaa hadda la keenay dharkii jeexjeexnaa in la dildillaaciyo oo la sarsaro oo la jeexjeexo oo dharkii dillaacsanaa lagu labisto dhallinyaradii hadda waxyaalahay bilaabeen waxaa ka mid a jilbaha yacni surwaal ka dillaacsan ayay xihanayaan limaada maxay ku arkeen aflaamta iyo filimada iyo tiifiyaday waxay ku arkeen ninkii gaalka ahayoo habkaa u labisan marka jilibkiisii qayb ka miduhu bannaankay taallaa dharka jeexjeexan waa laga xishoon jiray haddana labisuu noqday muxuu labis u noqday leannahu xadaaradii iyo haqaafadiiyaa gashay iyaga aragtidooda waxay isleeyihiin gaalkaas haddii aadan ku dayan quruxna ma haysid ilbaxnimona ma haysid waa sida shayddaanku uu ka dhaadhacsiiyey sheekhan la yidhaaho ibnu khalduun kitaabkiisa muqadamatu ibnu khalduun wuxuu ku sheegay mar la weydiiyey sababka bini aadamku ay isugu daydaan maxay tah sheekh ijtimaaciyuu ahay arrimaha bulshada oo aad ugu takhasusay ibnu khalduun muqadamatu ibnu khalduun ayaa sheekha lagu weydiiyey maxay tahay bini aadamku waxay isugu daydaan markaasuu yidhi bini aadam ku dayana haddaad aragtid fiihi hasiimatu nafsiya qalbijabaa ku dhacayuu yidhi oo qofkaas wuxuu isleeyahy waa kaa roon yahay qof ku dayanaya haddaad aragtid waa hasiima nafsiya ligayrihi qalbijabaa ku dhacay oo gayrkiisu u qalbijabay wuxuu ka roon yahay kaas uu ku dayana wuxuu aaminsan yahay inuu xoogaa ka roon yahay marka dhaqankiisii iyo labiskii iyo ayuu isku yeeli marka dhallinyaradan hadda gaalada ku dayanaysa waxaa weye hasiima nafsiya ku dhacday moraalkiyaa ka jabay qalbigiyaa ka jabay yacni kuma qanacsana quruxdoodii islaamnimadoodii iyo dhaqankii soomaalinimada oo sharafta badnaa ayaa kaafin weyse oo kuma qanacsana waxay leeyihiin fakaأna alxadaarata waاthaqaafata tanxasiru fi itibaaci اlkufaar waxaad moodaa xadaarada iyo ilbaxnimada iyo quruxduba haddaysan gaalo dhinacooda aysan ku raacin inaysanba jirinba saasaa shayddaanku ka dhaadhacsiiyey marka dhar jeexjeexan hadday qaataan way qaadanayan qaarkood waxaad arki surwaalkii hoosaa loo dhigayoo markay foorarsanayaan iyo waxaad arki dabadoodiiyo bannaanka imanaysa waa quruxa laga raadinaya ilbaxnimo waa isla fiican yaha meeshii ugu dambeysay asaga meeshii ugu dambeysay ayay la mari isaga waa sidii nabigana salى اllahu عalيه wasalam uu tilmaamayo xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuuhum uu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam dadka marka noocaa u dhaqmaya haddii maanta la yidhaaho god abeeso guryihii waa laga tegey godadaa la qodanah oo lagu hoyana oo ilbaxnimadii a heerkaa gaarsiisay maxaad u malayn waa gelayaan godkii samaysanayaan iyaguna ilaa nin surwaal jeexjeexan labis ka raadiyey oo cawradiisii iyo dabadiisii inuu bannaanka soo dhigo aragti ilbaxnimo ka raadiyey haddii la yidhaha guryaha waa laga ilbaxayoo godadaa lagu hoyanaana godku haqaafo iyo wuxuu u arki lahaa iyo inay xadaaro tahay ayuu arki lahaa marka mucjisooyinka nabigay ka mid tahay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuuhum qulnaa yaa rasuula اllaahi alyahuud waالnasaara miyaa kuwan raacayno qaala faman yaa kale romaan iyo yahuud iyo nasaare iyo faris iyo anwaacu lkufaar oo dhan ayaad raacaysaan ula jeedaa rasuulku salى اllahu عalيه wasalam